Mary Johnson adiga miya? haa maxaa dhacay? warqadan maxkamaday ka timid alaabtaada qaada ka soo bax guriga. maya walaal, waxaan moodayay ilaa 5 galabnimo inaan haysto. waxaan oo dhan keligay baa samaynahaya. taas aday ku jirtaa. ka soo bax gurigan waa la gatay, haddii kale xabsi baad aadaysaa. walaalow way fahan, odagiina wuu naga tegay, waxba noogama tegin. meelan aada ma garanahayo. walaalow waqti yar isii. fiiri abbaaye, dhibka adiga ku haysta aniga shuqul kuma lihi, adiga waaye. ka soo bax guriga. waa codsi, caawi, asxaan ii samee. qofka keliya ku caawin kara waa qofkii gurigan gatay. kuma caawin kara aniga. mar kalean kuugu celinayaa, alaabtaada qaado, ka soo bax guriga. officer raalli ahow, iska daanaa halkan ka sii wadahaye. abbaaye, wax dhiba ma jiraan, wax kasta caadi bay noqonaya. warniyaho anigu kuma garanahayo, gabadhan maxkamad baa guriga ka saartay. dadka keliya oo bedeli karana waa dadkii guriga iska lahaa. officer ayadaa iska leh, waatan warqaddii lahaanshaha. maxaa ku qoran? Mary Johnson. ma fahmin aniga sheekadan. gurigan asagoo la xaraashahaya anaa gatay. anaa magaceeda ku qoray, ayadaana iska leh. waxaan ka ogahay male arrinta. adinka lee waayo. waaw, waxaan aamini karaa ma aha. waxaan dhahaa ma garanahayo. laakiinse maxaad u samaysood ka wadde? imaba taqaanide. eeg, u fiirso. markii aan yaraa oon carruurta ahaa, qof aana aqoonin baa ii caawiyey oo noloshaydii wax ka beddelay. iga raalli ahaada, inaa idin dhiba ma jecli. dhib baa i hayee, fadlan i caawiya. maxaa kugu dhacay? maya, meelaan aada ma garanahayo. lacagaan cunto ku gata ma haysto. fadlan, waxaan sameeya ma garanahaye i caawiya. maskiin, aaway waalidkaagii maxaa ku dhacay? abbiyo hooyo labadoodiiba way dhinteen. keligay baan ahay, qof kalena ma haysto. iga raalli ahow, aad baan uga xumahay dhibka ku haysta. bal sug inaan waxaya fiiriye. naa maxaa samaynaysaa? annakaba taayadaana haysatee. soo bax, qof kasta ma caawin karneenna keen. waa ilmo yar, lacagtaan baan wax ka siinahayaa. lacagtaa bixinaysa waa kiradii gurigii. naa cunugan wuxuu yahay maba naqaaneenna keen. mindhaa darooga iyo waxbuu rabaa inuu ku gatee. hadduu run sheegahaya ka warran, soo inaan caawinna ma aha. waxaad samaynaysid wax la qaadan kara ma aha. waxaan eegi karana ma aha. waa adduun dhib badan. maxaanba u kala reebahayaa? iska wada qaado. waxaan qiyaasahayaa inay ku caawin doonto. aad baad u mahadsan tahay. maxaa waxaanoo dhan ii siinaysaa ima taqaanide? markaa qof caawisidooda wax siisid, wax ka badan baa lagu siin doonaa. adigana markaagaa lagu caawin doonaa. laakiin see kuugu gudi doonaa? ma baahnid inaad ii guddid. iga ballanqaad dhibkan haddaa ka baxdid ood aragtid qof caawin u baahan inaadan dhaafin. waa kaa ballanqaaday. hooyaday waxay odhan jirtay mar kasta, Mary Johnsoney, tanu waa falxad. waa nasiibe ha dhigin. adigana nasiibkaagu ha wacanaado. markaan weynaaday, waxaan ku biiray beec mushtarka guryaha. dadka guryaha gadaa noqday saysan guri la'aan iigu dhicin. waxaa noqday dadka ugu sarreeya oo guryaha iibiya ama iibsada. anigoo maalin eegahaya liiska guryaha la xaraashahayo, baa waxaa iiga soo dhex baxay magacaana hilmaamin weligay. waa magicii ahaa Mary Johnson. waa magicii beddelay noloshayda forever. wiilkaas ayaan ahay. ma hilmaamo hadalkaad igu tiri. eraygii ahaa, caawi kuwa caawinta u baahan. waxaad bixisay, wax ka badan baad heli doontaae. dareenkayga lama soo koobi karo. hadalkii baa igu noqday. aad ayaa u mahadsan tahay. ilama aha tan inaan kuu gudi karo. Mary, iga ballanqaad.
markaa dhibkaan iyo strugglekan ka baxdid markuu wakhtigaagu kuu wacnaado ood lugahaaga ku istaagtid inaad caawin doontid qof kaloo caawin u baahan